markay ku watay maxay ku soo sheegeen xasan maxamuud sabriye loona yaqaano shoka waa nin 90 sano jir ah isla markaana ka xanuunsanaya dhimirka intaa waxaa u dheer inuusan abad dhalin wax caruur ah oo uu wiilaawo yahay ayna gacanta ku hayaan dadka dariska la ah arrimahan iyadoo ay jirto ayaa xasan maxamuud sabriye lagu qabsaday dhowaan sida la sheegay gurigiisa oo ku yaala xaafadda korontada ee degmada Wadajir waxaana la kulmaa handadaad iyo cagajuglaan joogto ah isagoo 2 habeen ka hor lagala baxay hoygiisa lana geeyay CID-da halkaas oo lagu sheegay in laga dacweeyay xasan maxamuud sabriye oo aanan hadli karin indhiisana ay ilmo ka qubanayaan ayaa cod dheer uga dalbaday dawladda Soomaaliya in laga qabto dadka dhulkiisa ku haysta dawladda Soomaaliya aan ka codsanayaa in laga daawayo booskan ana degan ana iskale inta soo sanada degana 9 sano jara inta ingiriiska iyo tali yaani wajoogay barahan meesha ku jiro ana garabkii ku keensaday ilaahay idinkiisa saaray madaxweynaha gobernadora gobolka waxaan in uu taagay halkaas laga celiyo afduub ay wateen boos aniga Allah markay ku watay maxay ku soo sheegeen dadka dariska la ah xasan maxamuud sabriye ayaa qiraal cad ka muujiyay in oday xasan uu yahay ninka iska leh dhulka hadda lagu haysto oo deganaa dhulkiisa xilliga gumeystaha Talyaaniga koonfurta Soomaaliya uu maamuli jiray أنا مدينة محمد أفرحة أو ودني أنا جوحنا أوجها وداد كان أنا ومها أنقيل كل التاجني أو نجوج جرى أنت أركاي أو جوج جرى أنا أوجها أنا ودنا بيلينا نارت أنا جريهين قفوين أنا أحي أنا أوجها أنا سقالة أنا جداشان وحكد عماق عن الكيس إنه دجنا جرى أوجها خيرنا أين كتاجني هلا هالسن مركاتك waxaan markaati iyo maraka ahay aniga maxamed xasan cali 75 jira waxaan markaati ka ahay in biriga magaalada uurta roobadiisa taal dad loo soo diro warbixin hal laga atimaado ma uu naga dacweeyo hadda ka dacwoodana laga ma xukumo dhulka degmada og dacwada diisa degmaday taal degmada hay qofta dacwo qabta oo wax inay naga magaciisaysa rabtay wax naga warsato rabta degmada ha nooga timaado unuga dimbi baaris uma baanin dad ma dilin dad ma inkirsanin wax ma dilayn wax ma labayn waxaan muslim waa nabad galeynaa laakiin in nala geeyo meel dimbi baaris oo xoog la nala geeyo oo maskiinkan la geeyo la handado wax baa ku jira dawladda waxaan ka codsanaynaa oo dawladda sharafta ka codsanaynaa inay mahas nagala soo gaaro niman cawadii socda ee handada ee dad maata ee naagaya ilmaya adooga maha iskale qoftii aragta xataa wax kuisaa weysamayso anigoo magacayga yahay cali maxamed cali waxaan halkan ka cadaynayaa dawladda sharaftalana ka codsanayaa in wadaadkan waayeelka oo wiilaawaga dhulkiisa dad baadil ay ku haystaan markii ugu horeysana ay inta timid naag ay sheegatay naagtii la isla dacwoodo waxba ay weysay iska tagtay nin labaadaa noo yimiday anaa soo gatalay ninkii lama hadana dacwo la galan hadana wax waa baxay mid saddexaad anaa soo gadala hadana yimid cid oo nala dacweysana waa laanahay markii intaas dacwo wax noogala qaadi waayay in CID inta la geeyo ninkaas wiilaawaga iyo gabdhahan oo maatada in CID habeen madow lagu handado dacwadana male guriga la isku haystana dhul la isku haystana waa inay kasoo bilaabata saldhig degmo tagto gobol tagto maxkamad sare tagto dib weegis ay tagto hay'adaha cadaaladda ee dalka ayaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan awood fuluneed ee ilaalisa dadka ay dhulka u xukumaan maadaama xasan maxamuud sabriye 2 jeer ee hore loo xukumay dhulka imikadan lagu haysto